ragoo dhageysta hal mid ayaan idin sheegayaa. Gabadha way ku dhashay, wayna ku dhaxday, wayna kula dhalatay. Waana dhali doontaa haddaad dhalin, haddaad dhashana waaba dhashayba. Ha dhibaateenin gabar, hana xumeynin. Ragga inta xumaha jecel ayaan la hadlayaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada. Bal fiiriya hadda ka hor waxaa dhacday gabar nin ay aamintay ee jeclaatay uu dhahay haddaa ay jeceshahay waa inaa cuntaa saxradaada. Gabadhiina way cuntay. Wuu soo bandhigay video uu ka duubay gabadhaas ninkaas. Laakiin hadda qof sheekadiisa haya ma aragtay. Hadda sheekay ku imaataan ku keenaa aniga. Waxa adiga samaysid ma aragtay. Maalmo la wadwadaa. Maalin kale waa la iska dhaafaa. Hadda ka hor waxaa dhacday nina wuxuu sameeyay ri nool ayuu maqaar bixiyay. Markaas waxaa lagu dhahay war maxaa ka wadaa? Wuxuu dhahay sugu dhahay waa maqaar bixiyay ridii. Markaas xaafadii oo dhan isku soo baxday. Alla ninka wuu waalan yahay, ninka ridii oo maqaar bixiyay, ayadoo nool maqaar bixiyay, ninka maxaa ka si loo qeylina ilaa 3 maalmood ayaa sheekadii la waday. Maalinka afraad markuu meesha soo maray maxaa la mataqaana war waa kii iska daaya. Marka wax walba oo yacni ceeb ama fadeexa aad sameeyst adiga dhowr maalmood ay qaadanaysaa. Maxaa ku faa'iideysaa laakiin adiga fiiri magac ma ku yeelanaysaa, ma lacag lagu siinayaa, ma janna lagu balan qaadayaa, ma xuurul ceen dunida joogta lagu siinayaa. Intaas ba ma helaysid. haddana qoftan anaa soo ogaanay, anaa meel soo saaray, anaa yeelay soo ogow. laakiin ogsoonow adigana gabadhaada in laga jaraayo. wax walba hadda samaysid gabadhaada laga jaraayaa, walaashaada laga jaraayaa. xisaabtaas waa ilowsantaa adiga meelay kugu xiran tahay. laakiin qofka noloshiisa kugu aamino waxaa hadda laga yaabaa gabdho badan inay ka aamin baxaan ragga sababtan jirta awgeed. qof in la dhaho saxaro cun, qof in video laga duubo social media lagu soo daadiyo. waxaan wax suurtagal ah maahan. ragga Soomaaliyeed waxaan nagu yaqaanay rag sharaf badan inaad tihiin. sidaan si macquul ah maahan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsado. inta wanaagga jecelihiin, inta xumaha jecelna Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu toobad keena. waxaan waa adduunyo maalmahan way dhamaanayaan. xagee la wada aadaya? Ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ayaa la aadayaa. mataacun qaliil ha noqonin marka adduunyadan yar wax yar ha ku iibsanin jannadaadii iyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa ha ku iibsanin. waa maalmo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada. inta xumaha jecel adduunyadan qiimo ma lahan. hebel wuu dhintay bari aday kugu soo socotaa, anay kugu soo socotaa. sidaas ayay ku dhamaatay. sidaan ayaan ku soo afjarmaysaa. marka inta leedahay noloshaada saan waxba waqtigu ka dhumin. waxna yuunu ku qaadin hawadan iyo dhalaalkan. 1 daqiiqo bas, 1 daqiiqo fiiri, 1 daqiiqo qaadaya. 1 daqiiqo haddii qandho ku qabato ama madax ku xanuuno ama si aan noqotid, qofka kugu soo sokeeyo muxuu ku dhahayaa kiniiniya kuu doonaa. Ilaahay ku caafiyo. qofka kugu soo sokeeyo oo ku jecel wuxuu ku leeyahay Allah ku caafiyo. soo kama cabsanaysa Ilaahay cabsidiisii wuu ku qaban karaa. 5 daqiiqo naqaska lagu xiraa ku egtahay. ibn aadan ayaa tahay adiga. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku abuurtay. sidaad ugu xadgudbaysaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadan uu abuurtay. uu karaameeyo aayadiis quraanku dhahay walaqad karabnaa bini aadama. bini aadankii Ilaahay karaameeyay sidee u bahdilay adiga? saqiir walaa kabiir Ilaahaba karaameeyay aayadiisu ku sheegay. sidee aad u bahdilaysaa? war Ilaahay ka cabsado ragow. sidaan maahan. weligay maana arkin nin rag oo la dhahayo gabadha fadeexaysatay oo social media yaalo ama meelaha banaanka lagu fadeexaysanaayo. meel kasta ceebteena iyo waxaad dhigtaan xumahayna. maxaa u dhigaysan? fiiri waxaa arkaysaa gabar, waxaa arkaysaa wiil la necbaa, lana aqoonsaneen, bahdilnaa, rifrifnaa ee gabar ka dhigtay nin raga oo rijaal ah. bar horta fiiri bal adiga sumcad kasta iyo sharaf kasta waxa ku yeesho waa dumar ama waa hooyada ama waa naagtaada. sidee ugu xadgudbaysaa marka qoftaas? sidee ugu xadgudbaysaa? soo damiirkii intuu ka aaday. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsano. waxaan wax macquul gal ah maahan. ragoo Ilaahay ka cabsada. dumarka ha ku ciyaarina. war haddaa is leedahay fiiri ragga adiga asxaabtaada
haddaa is leedahay qoftaan waa way kibir badan tahay oo waa isqaad qaadaayo anaa soo qabanayo waxay ku taris malaan beri ayadana ka qabisanay mid kaa fiican oo kaa boqorsanna way helaysaa soo laakiin adiga maxaa ku nooshahay nolosha aa ku nooshahay waa nolol noocee ah imise sano ayaad ka shalayn doontaa waxaad ku samaysay walaasha imise sano ayaad ka shalayn doontaa imise sano ayaad kaligaa oyn doontaa ayadana ay faraxsanaan doontaa soo ilaahay ka cabsada marka walaalahay qaali waxaan idin leeyahay ilaahay subxaana watacaala ka cabsada inta khayrka jecelna aad ayaa idin jeclahay inta i jecel iyo inta wanaagga jecelna dhammaantiin aad ayaa idin jeclahay waana ku mahadsantihiin dhiirigelintiina maalin kasta aad dhiirigelisaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh